rasuulka marka laga sheekeeyo intee salaadood buu tukan jiray habeenkii maalintii culimadu waxay leeyihiin dhowr iyo 40 salaadood buu tukan jiray dhowr iyo 40 rakacadood buu tukan jiray waynu tirinayna eeg shanta waqti waa 17 rakacadood 17 rakacadood waxaad u geysaa 11 rakacadood oo habeenkii tukan jiray 11 uge waa 8 soo kama waxaad u geysaa 12 rakacadood oo sunna ah oo uu nabigu tukan jiray sallallahu alayhi wasallam oo raatiba la yaa raatib oo kullamaan oo kulladan shanta salaadood waa 40 waxaad u geysaa 4 rakacadood oo duxada ah 44 ka ayuu nabigu tukan jiray sallallahu alayhi wasallam sida awgeed marka uu safarka galo iyo marka uu nagi yahay waxa jira salaado aanu marnaba ka tagi jirin xitaa hadduu faralka soo gaabiyo salaada waxa jira sunna ah oo aanu marnaba ka tagi jirin salaadahaasi waa kuwe waa 3 waa 2 rakacadood ee salaada subax ka horeeya waa duxada iyo witirka saddexda kama tagi jirin nabi sallallahu alayhi wasallam fi safari wal hadar safar iyo hadar kama tagi jirin wuxuu nabigu ugu dadaalayaa duxada tukashadeeda wuxuu ugu dadaalayaa xadiis kale uu ku sheego wuxuu yiri waagu markuu bariyo dad yahow qof walba idin kamidihi xubnaha jirkiisa ku yaala xubin waliba oo kamida sadaqad baa laga doonayaa intee xubnood baa qofka jirkiisa ku yaala 360 xubnood baa ku yaala nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam farta kaliya waa 3 xubnood subaxii markuu waagu bariyo oo aad toosto ilaahay baa ku soo kiciyay iminka markaad ka istiraahdo oo maskaxda u sheegto inaad kacdo xubnahaad adeegsanaysaa gacmahaad ku kacaysaa lugahaad soo laabaysaa waad soconaysaa farahaad wax ku qabsanaysaa markaad aragto dadka buka ee aan awoodi karin inay afka wax ku cunaan wax ku cabaan ee la soo fariisinayo ee aan isla kale la rogayo xubnahaagi iyo bad qaba indhahaagi dhagahaagi sankaagi afkaagi gacmahaagi lugahaagi jirkaagi oo bad qaba waad foorsan kartaa waad kacaysaa waad fariisanaysaa waad soconaysaa nimcada ilaahay uu ku siiyay soo ma baahna inaad ka mahad celiso mahad celintu waxay noqonaysaa inaad sadaqad subaxii waagiisu bariyaama la baxdo hadaadan awoodi karaynin wayujzi'u min dhalika rak'atayn yarka'uhuma 2 rakacadood aad tukato ayaa kaaga filan oo nabigu sallallahu alayhi wasallam yaa kaaga filan ilaa waxa laga doonayaa mahadnaq inaad samayso xubin kamida iminka haddii gacantu sidaa noqoto xitaa ma wardin karaysa waxaad ku wardinaysaa waa xubnaha la laabmay ma cabayn karaysa haddii faruusaa ku noqdaan bal gacan sidaas aad u cabay ku qabo waa kaas bal gacan sidaas wax ku cuntadii lagu soo waa qubanaysaa markay soo laabanto waxaad ku cabi kartaa waad ku qabsan kartaa xubnaha la laabmaya isa ilaahay isugu hagaajiyay soo uma baahna inaad ka mahad celiso subaxii waagiisu bariyaaba sida awgeed baa rasuulku wuxuu tilmaamay dadka xilka caynkaas fahansan ee salaada duxada tukada dad gaar ah inay yihiin tilmaan gaarana leh salaatul awaabiin buu nabigu dadka ilaahay u noqoshada badan had ya gooraale ilaahay xusuusan salaada ay tukadaan wa taabarqadi ay tukadaan nabigu alayhi salaatu wasalaam hadda dukaankaaga joogto haddaad xafiiskaaga joogto haddaad wastaa tahay oo guriga dhisayso haddaad kuuli tahay haddaad gaari wado dacu baydo labadaada rakaco labadaas ugu yar tuko maalinta waad gudatay goor kasta daawada la soco ku xidhnow page-ka Facebook ee Dulmar Media fadlan daawada follow garayso page-ka Facebook ee Dulmar Media siina like garayso page-ka si aad goor kasta halkan uga heshid warar iyo warbixino kula geliya waad mahadsan tahay ee goor kasta la soco ku xidhnow Dulmar Media.